بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu kusoo jirnay barashada software-ka Autodesk AutoCAD. waxaynu soo gaarnay chapter-ka 7 cashirkiisa 3. cashirkan waxaynu uga hadli doonaa layer manage and filters ama layer status and filters ayaynu uga hadli doonaa. haddaba aynu soo furno layers properties-ka aan soo furno layer properties. marka saan soo furto layeradan intaan leeyahay noo furan waad ka yeelan kartaa. waxaan saan intaan u badiyay in cashirka caawa si fiican loo fahmo ayaan leeyar badan soo doortay oo kala badan aan siiyay. laakiin inta adiga ku shaqaynayso oo kaliya waa samaysan kartaa 4 leeyar 3 leeyar. waxaan leeyahay aniga ii furan si loo fahmo darsiga. haddaba aynu ku bilowna layer status. inta ayaad ku sii dhufanaysaa aan ku celiyo hal mar. waa kana leebkusan ku furan yahay. inta ayaad ku dhufanaysaa panelkaas kadib waxaad dooranaysaa new layer status. markaad ku dhufato magaca u bixinaysaa. مثلا waxaad leedahay all active layers. all active layer markaas aad dhahdid okay dheh. marka dhammaan layerada active ay ku yihiin oo waxaad categorisay all active layers. waxaa kale oo samayn kartaa inaad haddana aad samaysid new layer status. مثلا hadda layerada qaar ka mid aan ka dhigo off. kuwaas hadda off ka dhiga dhowrkaas xabo. kadib waxaad leedahay waad ku laabanaysaa inta imaanaysaa layer. kadib waxaad dooranaysaa inta. marka waxaad leedahay new layer status. then waxaa u bixinaysaa off layer of layers. kaliyaasaynasaa of layers are already exist. markalan ayaan sameeyey waxaa sameeyay marka replace ana hore u sameeyay yani okay. hore u socdo waxaan kala sameyn karnaa horta aan manage layers aan waxa ku jira aan arko. waxa ku jiro all layer status of layer. hadda oftan aan delete gareeyo si aan marka u sameeyo kaasna delete deh. waa u tagi doonaa lan waxaa la restore. haddaba aan soo sameeyo aan ku celiyo hadda waxaa dhahdaa inta soo fur layer new layer status deh. kadib waxaad u bixisaa off layer of layers. hadda waxaan sameynay new layer status oo ah off layers. waa u tagi doonaa layer manager aan u tagi doonaa. aan mar kale ku laabto waxaan sameyn karaa sidoo kale lock layers. inta aan loo gareeyay ama dhowr layer baad waa kana hadda dhammaan active ay hayeen. hadda isku dhufto waa loo gareeyay. kadib waxaan leeyahay soo fur layer status. kadib waxaa ladaa new layer. waxaa samaysaa marka lock layers leh. marka saa ugu dhufato haddana ku laabo waxaan samayn karnaa oo kale off layers waa sameynay on inta noo samaysan aan fiirino. yes layer manager dheh. intaan ba ayaa noo samaysanba. marka muhiimadda aan ka helin maxaa waye marka waa kana saa markaa usoo furto halkan imo marka manage layer status. waa kuwaana marka layerada noo furan menu boxkan ayuu noogu furan yahay. saddexdan ayaa hadda aan sameynay all active layers, lock layers iyo off layers aan sameynay. marka dhammaan layerada active-ka ah waxaa sameyn kartaa inaad edit ku samaysid. waxaa sameyn kartaa inaad update gelisid. waad tiri kartaa ama waad delete gelin kartaa remove fields good waa. marka anaga hadda waxaan dhan u baahnin. kadib waxaa ii samaysaa hal mar highlight saar kadibna delete iga dheh u baahni. wuxuu ku leeyahay marka are you sure you want to preliminary delete the layer state oo ah u bixiyay all layer all active layers. marka maxaa la yes to all dhammaan iga tuur. marka waxaa u baahni inta aan uga socdo marka layer status. waxaa kaloo ayadana muhiima filters. layeradan farada badan ee meesha noogu yaalo aynu filter gareyna. waa anaga qaar lock saarnay. qaar kale waxaa noo kalinay off ay noo yihiin. midabo kala duwan ay noo leeyihiin. fahmaysaa magacyo kala duwan bay leeyihiin. marka aynu groups u samayno ama aan filter gareyno. haddaba intaymo
marka inta imaado muxuu ku leeyahay new property filter ama waxa alt plus b ayaa lagu sameyn karaa oo shortcut ah kadib halka marka magac u bixi tusaale ahaan waxa samaysaa of layers damisa marka waa ujeedaa intaan property ay leedahay marka halkan imo boxkaas marka waxa way waa freeze waaye on hoosteeda imo على off marka wax alla wixii off layers ahaa ayaa ku soo baxaya waa kuwana marka intaan layer ayaa off hadii aan okay dhaho inta ayuu kaaga muuqanaya waa kuwana waa kana intaan ayaa off hadaba marka aan ku laabto مثلا color leh red color layerada midabkooda uu guduudka ahaa ayaan rabaa inaan gooni u sooco then waxaan imaanayaa meeshii color ahayd hoosteeda waxaa dooranaysaa midabkaas guduudka then waxaa leedahay okay marka okay dhaho waxaa la wixii midab guduud lahay oo dhan ayaa gooni igu soocmayaan okay hadda marka waa ujeedaa waxaa la wixii midab guduud lahay oo dhan waxaa laga yaabaa project weyn inaad ka shaqaynayso projectkaasna waxaa weeye different colors badan aad isticmaalaysid marka si aad categorized ugu samaysid ama aad groups ugu samaysid ayaa la isticmaalaa aan dib ugu laabto oo layers leh waa kuwan layeradii oo idil mar kale waxaan samayn karaa inaan dara group kala sameeyo hadda off iyo waxaan sameeyay color soo mahayn red color waxaan kale u baahan dara yellow color waxaad imaadaa colorka imow idaa meeshirta ku dhufo yellowga dooro marka waxaa la wixii yellowgaas le ayagana aan gooni u sameeyo okay waa kuwana labadaas layer bas yellow noo ahaa window iyo midkaas kale fahmaysaa markaan dara dib aan ugu laabto oo layers waxaan samayn karaa handara mathalan tusaale ahaan kaarta ka dhigi kartaa dhammaan waxaan dhan optionskas mathalan plotka aan sameeyo kaas plot waaye kana plot waaye then aan imaada halkan filter leh plot u bixi plot layers kadib aan imaada positionka plot after dooro kadib waxaad daadaa okay aynu imaano marka intaan baa waxay yihiin block waa kaasa marka waa kuwana wax alla waxaan soo sameeyay oo dhan kuwan inta guudkeed waaye kuwan inta yellow ahayd waaye kuwan soo plot gareey weeyaan kuwan layeradan off ka dhigay weeyaan kuwan waka marka sidaas ayay faa'iido u leedahay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa cashirkeenii ama darsiga saddexaad ee chapterka layers والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.